abaarta iyo maamul xumada ka jirta degmada Jariban waxay sababtay in dadkii danyarta ahaa uu ka sii damaya dabka aysan jirin cid ka warqabta xaaladooda nololeed. Idris Maxamed Maxamuud waxa dhalay xisaabiyihii hore ee dawladda Soomaaliya degmada Jariban u qaabilsanaan jiray Maxamed Maxamuud Diiriye Allah u naxariisto ku magac dheeraa Barakaale. Idris waxa uu ka mid yahay dadka hal abuurka ganacsi leh laakiin waqtiga iyo waayuhu ay ka badiyeen. وأبا دhalay 3 caruur ah iyo hooyadoodna ay la nooshahay waxaana nolol maalmeedkooda uu uga raadiyaa nacnacan yarka ah ee aad aragtaan ee miiska saaran. waxa uu sheegay hadii uu helo gacan qabasho wanaagsan in uu wax badan ku soo kordhin lahaa ganacsigiisa iyo xirfadiisa uu yaqaano. waxa igu soo salaamay walaalkii Cabdiqadar aad iyo aad waxaan leeyahay soo dhawow Cabdiqadar taabac insha Allah bil kariim mowduuc meesha aniga igu saabsan oo deegaankana ku saabsan waayo qofku markuu cid subhanahu wa ta'ala ilaahay umadiisa markuu nabadgeliyo markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala umadiisa oo maaragtay nabadgeliyo oo shantiisa waqti tukado ilaahay baryadiisa iskaga jiro muslimku waxa weeye tacaawunu 'ala al-birri wa la tacaawunu 'ala al-ithmi balidi muslimku waa kan isku kaalmeeya halkaan anu waxaan uga hadlayaa iyadoo deegaanka ka jira baahiyo badan oo maaragtay ay iska jiraan culeysyo badan la hadligeed meeshaan ana isku dayay aniga saas u soo sameeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo baay kaalmeeyay iyo ummadayda muslimiinta aan ku dhex jiro hadii meesha la furay meesha waxay u baahan tahay in dhaqaalo hor la geliyo dhaqaalahaasna anigu hadda waxa weeye xoogaa waa iga gaabis buu noqday. waxaan jeclaan lahaa dadka muslimiinta oo ku nool gaar ahaan deegaankan ka soo jeeda jaariyada qurbaha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka 14 boqolka codkayga haduu soo gaaro waxaan leeyahay anigoo ah Idris Maxamed Maxamuud oo ku nool deegaanka Jariban hal abuur baa leeyahay waa u jeedaa waxa meesha ka muuqda waxaan u baahanahay taageero dhaqaalo waan u baahanahay oo ay igu siiyaan ilaahay dartii iyo ayagoo deegaanka aan ka soo jeedo ugu ixtiraamaya hadalkaygu waxa u baahnayd in laga saacido waxaan u baahanahay horta dhaqaalaha meesha waa yaalaa marka dhaqaaluhu waa yar yahay dhaqaaluhu haduu yar yahayna wuxuu u baahan yahay kabid maanta meel aan wada noqonayno iyo dawladda aan wada noqonayno iyo bangi aan wax ka soo qaadanayna ma jiro marka anigu waxaan ka rabaa anigu ganacsigayga waa ku niyadsanahay asagoo inta yar ah baan ku niyadsanahay waxaan u baahanahay kabid baan u baahanahay iyo taageero ay igu sii dhiirigeliyaan waxna igu siiyaan nacnacyada maxaa kala haysaa nacnacyada iyo waxaan hayaa yararka shukulaatada nacnacyada iyo waxa kala hayaa qalimaantii biskudkii shidaalkii oo iska sii gabaabsiya marka inta waxaan ahayn ma hayo intii marka isku biyeyn lahaana marka hadda waxa moodaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa faraj waa furi karaa laakiin dadka muslimiinta waxa weeye tacaawunu 'ala al-birri wa al-yari ila igu kaalmaysa intaas ay dhanba dhaqaalaha waa kugu filan la hadii lacala heli lahayd hadii lacala hadii waxa igu filan la kunba iska dhig